isbahaysigu wuxuu ku helay in musharax madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu maalmihii la soo dhaafay dadaal aan kala go' lahayn ugu jiray magacaabista oday dhaqameed cusub oo lagu soo kordhiyo liiskii 135 odaygaas oo loo magacaabay beesha reer xasan ee kamida beesha shanaad si oo ugu sadburiyo saaxiibkiis Faarax Sheekh Cabduqaadir oo u tartamay xilka xildhibaannimo ee beesha reer xasan Faarax oo hore isaga dartiis uu madaxweynuhu laba xukuumadood xilka uga tuuray ayaa dalka u horseeday xasilooni darro siyaasadeed isbahaysiga xisbiyadu marna ma aqbali doono iyo musharaxiinta kaleba isbedel lagu sameeyay liiska odayaasha dhaqanka ee 135 ah ee la isku raacay kaliya wuxuu isbahaysigu aqoonsan yahay sidoo hore u cadeeyay in liiska lagu soo daro ugaas xasan ugaas khaliif ugaas rooble horta waxa nasiib darro ah oo aad nasiib darro ah mudane jawaari oo aqoon-yahan ah oo nin ka khibrad badan uusan xafiis waddankan ka haynin maanta ee mas'uul ka ahaa baarlamaankii sharci dejiyada hay-addii ugu sarraysay waddanka in uu ku milmo dadka sharciga jabi ahay inuu ku milmo inuu horseed ka noqdo uu noqdana aalad loo adeegsado in sharciga la burburiyo ilaah baan kugu dhaariyay maxaad reebanaysaa waxa aad reebanaysid maxay tahay waxa aad doonaysid waa maxay tahay waxa aad doonaysid waxaad iibsanaysid maxay tahay qabiil dhan sultaan nin u talinahayay inaad nin kale ka dhex abuurtiin shakhsi awgeed eed adigu magacaaga ku qor lagu dhaho war aalad sharciga lagu buru adigii sharciga ilaalinahay miyaa ah aalad sharciga lagu burburinaya waxaa kaloo nasiib darro ah nin mas-uul ah ilaahay baan idinku dhaariyay ninka ku kalsoonaan waayo reerkiisa odaygiisii ee oday faalsa ah samaynahaya yaa way mas-uuliyadda u hayaa way waraaqdaasu waxay soo tuurtay waxa waaye tilmaan waxay u tahay in wixii la isku raacay oo lagu heshiiyey in lagu xadgudbay ayay tusaale u tahay tush waxay gelisay processkii dhammaa ayay tush gelisay wuxuu ku salaysnaa oo lagu heshiiyey 135 oday ayaa waxay soo magacaabayaan ergadaas ayaa soo dooranaysa xildhibaanada Soomaaliya hadiiba lagu dhiiran karo wax noocaas oo kale ah maalin cadow weyn maalin cad hadii lagu dhiiran karo macnaheedu waxa waaye waxa soo socdaaba ka sii daran saas darteed annaga waxay shaki naga gelinaysaa dadkeenan u taagan oo meesha u fadhina inaan qayb ka noqono isbedelka Soomaaliya qayb ka noqono awalna u taagnayn shaki waxay naga gelinaysaa nidaamkan iyo processka dhan ee lagu shaqeynay shaki bay naga gelinaysaa hore ayay yani maaragtay waxaan iyo wax ka badan ay nimankaasi u sameeyeen waa laba shakhsi waa madaxweynaha waqtiga yar u haray iyo gudoomiyihii baarlamaanka waqtigiisu dhamaaday ee hadda warqadaha ay ka soo baxayaan xafiiskiisa waxaan u cadeynaynaa bulshada caalamka iyo shacbiga Soomaaliyeed in nala arko waxa maanta ka socda Soomaaliya annagu waxaan u rabnaa nabad waxaan u rabnaa deganaansho waxaan u rabnaa dimuqraadiyad waxaan u rabnaa in qof walba xuquuqdiisa uu helo oo codkiisa uu cidda uu taageersan yahay u dhiibo nimankan sida la socotiin waxay diideen in la dhiso maxkamaddii dastuuriga ahayd in garsoorkii maanta la kala qaban lahaa la dhiso oo la hagaajiyo waxay u diideen khaladka ay damacsanaayeen waay